بس هاي بولشو 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 وحير أنا سدقي سنة مركو وحير أنا سدقي سنة أنا سدقي سنة وحير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها قول كبنادر أهنا الدقة مقالة مقدشو وزير كحجيندا وزاردها كردون وزارد جناسي وزارد ورفافينتا وزير هذا كلاته قدومي كحجيندا قول كبنادر دقنك علماء الدين كا جناستها دقموين كالدوان قول كبنادر xildhibaanada labada aqal ka soo qayb galayaasha culimo diinka dhamaantii waxa ay leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaanka bacdi waxaan rabaa markii u horeysa inaan soo dhaweeyo xafladan quruxda badan leh oo ay noo dhigeen gobolka Banaadir oo ah runtii xaflad qiimo leh oo ay ka turjumayaan inay yihiin hooyadii caasimadii dalka Soomaaliya ayagoo u dhigay xafladan caawa in loo mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya دكتور حسن الشيخ محمود لوغانا مهد عليو قوشة أن قاردي أو سوماليا أسوهيتي أو أكو بيريستا بلشدة دلالة بلشدة بريغا أفريكا إي سيدا أن كبيرنا إي سي أو أن كبيرنا سوماليا أفر إلواتنكي بيشي كوي توبنات 23 أو وقت دير لغسو شغينا waxaan rabaa marka anoo ku hadlayo codka ganacsatada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed inaan u sheego inay anaga maalin gaar ah ay noo tahay 24 bishii 11aad 2023 oo aan ku biirnay bulshada dalada bariga Afrika oo ah dalad ganacsi oo aad u weyn oo wax badan dalkeena iyo dadkeena tari doonta waxaan leeyahay si gaar ah anaga farxad noogu tahay ganacsadeena waxaan kaloo rabaa inaan u xaqiijiyo dadkeena Soomaaliyeed waliba khaasatan ganacsateena iyo Soomaalideena waxyaalo badan oo u baahan inay noo daaweynaysaa oo ay kamid tahay Soomaalideena waxa way waa dad socod badan waa dad travel badan waa dad aad Afrika ugu socda marka barnaamijkaani wuxuu qayb ka noqon doonaa socodkeeni in uu macna u sameeyo oo aan noqono dad milkiilayaal ah oo wax kale dalalka ay tagayaan oo maxaan ku raada aan marti ka ahayn todobada wadan oo aan ku biirno 8 ku nahay dhamaanteen waxaan sunahay marka dad isu furan oo walaal ah oo aan dhinaca immigration ka aan aad ugu dhibiraan doono midda labaad oo faa'iidada ganacsatadeena sida gaarka ah ay u helayaan waxay tahay annaga shaqada hadda loo diyaar garoobay hore u sii qabanayba ganacsatada Soomaaliyeed waxay degan tahay todobadaas wadan intooda badan waa deganayba annaga haddaan ka shaqaysanaa haddaan si oo xoogan ugu dhex jirnaa laakiin waxaa noo soo biirtay inaan heli doono xorriyad oo aan maaragtay aan xoog badan aan ku yeelan doono oo xoolaheennii aan la soo bambixi doono oo aan ku faani doono oo aan ka mid nahay maxaan ku idhahdaa bulshada dalada bariga Afrika aan qayb ka nahay oo markaan wixii ka dambeeya aan si xorriyada ula ganacsan doono waxaa kaloo dadkeenu isla dhex marayaan inaanan dadkaas aan la ekayn waa run waa naga horreeyaan oo waa dad muddo waqti badan oo anaga aan mugdi ahayn ay iftiin ahayeen laakiin dalkeena marka hadda deentana la ka cafiyo oo deen cafinta wax yara ka dhimanay ee deen cafinta noo dhacdo oo dalka maalgashigiisa oo furmo oo ajaanibta iyo qolo walba aan soo nimaano oo dalkaani si degdeg ah loo mado baalgashto oo marketkaas aan ka faa'iideysan doono 312 milyan bulsho ah aan u shaqo tagi doonaa oo aan rabnaa inaan badeecad geysano oo aan u shaqo tagno marka waxay ku tusaysaa Soomaalida waxaan aad uga fikiraynay 90 milyan oo dhabarkeena aan ka fikiraynay laakiin hadda waxaan galnay 312 milyan bulsho ah aan dhex galnay oo aan ka ganacsan doonaa dhexdooda kuna safri doonaa marka waxay ku tusaysaa Soomaalida awalan aad u miskax furnayn anagoo aad u miskax furnayn haddii haddana naloo helay shaqadii iyo barnaamijka aan dhex gali lahayn waxaan leeyahay mudane madaxweyne shaqada aad qabatay iyo bulshada Soomaaliyeed wixii aad tartay annaga waxaan ku leenahay hambalyo ganacsatada Soomaaliyeedna waxa u furmay waa cusub oo u furmay iyo jid cusub insha Allah waxaan rabaa inaan dadkeena u sheegno anaga waxaan leenahay xeeb dheer iyo kalluumaysi iyo wax badan oo dalkeena oo warshadaysmi doona
مردو دالكينا وحن بلابي دونا إنا ورشدينو مر هدين لورشدينا وحن ورشدينا سي وحن ويبجين دونا بداعدهنا سدح بقولي لبي تون كاس مليون ويبجين دونا أنا قلنا وكودس بدونا وآمن سنة هاي سوماليا إنا شانسنا جدود أي أدونك وقد بتجلس بركة دينا عفنتو دعوة وأنا قصور نقولنا إن شاء الله هدي لا يراب وقدام بنتي وحن روا إن هذا اليوم قدوميها قبل كي قربيه سا يوم عن كنا دقموين كنا ومركز تأتاجن على مدى دل كان يقارن كان يمال أنتين ورك مدن قدومي واحد اللي هاي هذا أمة سنتين عاصمة الصومالية ووح اللي قبرتي إن أهاتو معهم كنا هواي دي دل كوامات سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. هذا أمة سنتين قدوميها ركتة جناعسية الصوماليات محمود